وريارا إسكمان السلام عليكم وعليكم السلام ورما شاء الله جيت كي أنت والقدن يا خيارتي ويتشوكتا ورعاش عدالة ما شيء محاور هيسام ورأضيه ورموق باتهاي عائشة عدالة هالشيء دادكي فالك جيستنا ساك أيال لقي قصاصيو ما ننكود المرسي ما صدح ذي وما لقى قصاصة بقعي ما يلا بالدلي اوكي صدح المدربي وكبولا طلو ما يلا ولا لا هذا سومالي دقن كذا بانقانا هل بحال مستركم مقانا ومالينا عدالة سوما دمار استرنا هاي دكتور واكا مغلينا ايشنا واكو اركين وعسوغينا عدالة داس نين هاوينكم صلايو توغا شادو تهاي كو كونكنا ولا قاون وروحان كلايدي ويدي madaxweynaheeni waxa la yiri dabaduhu maraya dawladaha caalamka madaxweynayaashoodu la kulmay maxaa soo kordho warka haysan wax waramahay halkaana bali ka qanciya madaxweynuhu sida aad baqashayba Addis Ababa iyo shirka African Union ku joogay halkaasna wuxuu maalinkii shalay ka jeediyay khudbad cajiib ah oo danta iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed waxa uu yiri Soomaaliya ayadoo gacmaha ka xiran bay muddo dheer waxay la diriraysaa argagixisada iyo dhibaatadeeda sidaa daraadeed African Unionka iyo beesha caalamka iyo cid kasta ay qusayso waa inay noola guntadaan sidii cunaqabataynta nolol kaga qaadi lahaa ciidan tayarana aan u dhisanay si aan maslaxadeena iyo nabadgelyadeena aynu ogala wareegno amisom war waxaan idin weydiiyay maxaa tiraahdeen madaxweynuhu wuxuu yiri African Union wuxuu ka codsaday in gacmiya lugahana laga furfuro oo qabataynta laga qaado oo ciidan dhisano walle warkaas war bay iga raacay afarta wadano ciidamadooda halkan ciyaalada ka biilaan kale noo codayn mahayaan rag cad iyo rag kale Afrikaanka oo madmadow oo anagu xoreynay beri ahayd yaa kuwaasan rabnaa inay noo codeeyaan oo ka codsanayna inay ciidankana la dhisaan waryaara waxaan idin weydiiyay daraadna waa arkaya daraad kuwa cad oo meesha dhex fadhiya waa arkaya shalane meesha moorageel bay ahayd kuwa wada indha bulbulugan baa ka buuxay meesha ma Afrika ku shiraysa mise cadaan baa shiraya horta waraade ka wareeg cadaani waxa ka timi yaa ka cad Afrika war Masar bacad oo Libiya cad oo Tunisia cad oo Marocco cad oo Algeria cad cadaan waxa ka timi waxa aad aragtay waxaan arkaya calaamada waa arkaya calaamada qaar baa hamoodinaan badow ahay waxaan soo akhrist anigu waxaan arkaya calanka Canada aan arkayo caleenta laha kii gudubna dhahda istilaabta kala habeerkayo waa Denmark soo aqaana waa ka buuxa mid xidiga badan waa arkayo bulugana waa arkaya iga dhaafo ciyaartay hala ii sheeg dadkan cad waxay meesha ka hayaan hala ii sheeg waxaan u qaba oday biqirusa inda lahayn wallahi billahi shan jir waa ka inda dheeri waa runtii wuxuu arkay waa rag cadcada oo indhaha buluuga leh oo runta waxay ku leedahay waa hebelow yacni Afrikaan cadcad ma jiro dadka cadcad oo runtu ninka sheegay waa runtiis waa dadkii real-ka ahaa waa dadka meesha ku shiray waardiyaha ka ah ilaalsanayo Afrika oo dhan bas sila bahalka kaamirada u dul saaray maad garateen nabi aadan mar hore gablami mar hore hadduu dadka indhaha buluuga dhalin waa runta adeer waa runta ku adaragtay way waxaan madaxweynaha ayaga aad hawla sheeshiro madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dadkan madmadow cuna qabatay namana saarin nagamana qaadi karaan dadka cadcad indhaha buluuga halkaas weeye bahashi halka ka soo dhirandiri waxba anigu walaaqo adigu waa isku fikir dhownaha waxa isku fikir dhowl alla igu warhaan madaxweynaheena iyo madaxweynaha midowga Yurubna way kulmeen waxayna ka wada hadlayeen sida looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka war naga qaada cunaqabataynta warana way si weydiiyay cunaqabatayn hubka ka sheekay haytaan cunaqabatayn la saaray meel ana mar waxa badda ku yaras bal wanagaba dhab yare cunaqabataynta uu sheegay cunaqabatayn la saaray walaagan uu askariga wadan inta la ku sheene waxay tiri meesha aad martaba askari waa bunduq loorda bunduqaan adduunka dhan guryaha Amerika xaafadu iska yaala ciidan haysan ba meesha kaas ma aha kan laga hadlaaye sideedaba qaranku waa inuu leeyahay madaafiic meebeyaal madaafiicda goobta diyaaradihii dagaalka maraakiibtii dagaalka cunaqabataynta
saaran oo la sheegahayo waa hubkii waaweynaa oo wax lagu riiqi lahaa weeye kaas weeye kanaan aan leenahay xaashina siiyo noogolaadaan raashiya ka soo dejinno maraykan ka soo dejinno china ka dejinno haddii la rabo north korea aan ka soo degsanne kaas weeye kanaan raadinayno waa soo socdaan ciidankii saanada lahaa sumadna waa inay leeyihiin lagu sifneeyaan waa inay saraakiil cilmi leh soo canqariyaan war saaxiibayaal ayixii dalkeenna maray waagii dhoweyd habaar qabe ukun buu ka tegey waan haddayna dilaacday ilaa afrikada bari ilaa bakistaan baa laga qaylinaya khatartiisa ilaahu naga badbaadi waxaan maqli jiray ayaxow weliga ayada waad dilataa eella waad ka tagtaa aafadaada miyaan aad ba looga gudbayn xaggee looga gudbahayaa inkastoona ku dayada ilkaha ku rigaaxano war gawska ku ciribtira baal wallahi inuusan anfac ahayn hadduu anfac yahay afrikaa ka qayriyana waa horay duban lahayd baa taalow naga soo gaa war suuqu buufiya war china u dhoofina china markaan china u dhoofina ta gurro waaba lacag warayixi waa ilaadan islahaye ma adduunkiibu ku faafay adduunkiibu ku faafayo eegu soo dilaacay asagoo kumihiisa bilgiisu yaacaya ayaxa markuu u yimid oo Soomaaliya ugu soo booqdo uu ogaataan ku dhigay bal waxaan kala helnaa leenahay mar kale markuu yimaado war haadhahay waxa kala helaan leenahay ma ahane ayax abaar buu keenay ilaahay hanaga qabto dadka ilaahay ha baryaan afaya horta waa abar afaya horta waa abar Allah naga mansade afaya horta waa abar Allah naga mansade afaya horta waa abar Allah naga mansade war waxaan idin weydiiyey goorma adduunyada xagga kale loo rogi waxaan maqli jiray boqorrada carbeed baa shiraya madaxweynayaasha carbeed baa shiraya wasiirada carbeed baa shiraya haddana waxaan maqlayaa wasiirada dumarka carbeed baa shiraye waxa la yidhi nin baa wuxuu soo galay isagaan weligii tukan salaadiideed markaasay allahu akbar markaasuu iska baxay wuxuu war horta salaada xagay ka xarin malaaqda war bal ii sheeg allah adigan baan la yaaba war haadha oday waad indhayareysay waxaad aragtay madaxdii carbeed oo khamiisyadii xiran baad aragtay ilaa madaxan uu u daboolan yahay khamiiskoodana aad buu u dheeri dharka dumarka laga yaqaan cabaayad buu eegyaa waxa aragtay waa ayaga si fiican ugu noqon si fiican iska hubi waxa aragtay war waa run waxa aad aragteena waa gabdhihii wasiirada carbeed waana halkay ka timid qoondada gabdhaha waliba waxa suurta gelisay isla xisaabtan ka yimid adduunka taasa suurta gelisay waryaade halka carabi ka ogolaatay qoondada dumarka Soomaali baan aqaan reer hebel hadaan nahay gabarinimo ma tashantaa tiraahdaan wallahi xabsiga baad ku uraysan heeg baa la idinku wada xareynaya iska jira arintaas wala qoralo godkaaga biyo kuugu soo galeen awalan yaabana islaamii Soomaaliyeed sodohii xataa qoonta ka waxa soo gashteen hadii gabdhihii maqbiyooyinka carbeed oo dal laga soo qaaday wala waa duugada ilaahay uu sufunka nagu dhaxyeeyay nagu dhex taagan war maxay yiraahdeen gabdhihii qoontadoodii ragow godkii aad ku dhexleeday ka dheeraysto qotay markaan ilaa gabdhuhu guriyaha idin joogeen ilmaana ha idin dhaleen ma wax barashaanu geynayna aad ku hayseen wata ilaa yeheeg bay tagaan afkastana waa barteen ka haabiya wala ilaa iyo meesha u sarreyso kuwan inaysan hakanay waa arkahaya ay war halkaas ka wada gabdhow halkaas ka wada hawsh war ma haysiina haweenkii waa horumareen hoggaankeeyu haweenyin haweenkii waa horumareen hoggaankeeyu haweenyin haweenkii waa horumareen hoggaankeeyu haweenyin haatan waxa la gaaray maxaa sixid u baahan xabar weyne wadooyinka habel la dago hal la gooste dhiiqadii iyo ganacsigii baa isdhex yaalo halkaas waxaan u malaynayaa corona disease inuu ka dilaaci doono taas baa sixid u baahan waliba ku darso ileen roob ma di'in biyahan qulqulaya waxay ila tahay waa tubooyinkood dilaacay waxaana la xisaabtan u baahan qolyaha iskala tubooyinkan dilaacay war heedhahaya waxaa kaloo sixid u baahan jaamacadaha oo ay ku jireen maskaxdii ummadda Soomaaliyeed oo gaari hadduu saan ugu agadoomo ayadana dhinaca kale u gadoomaysa alla ilaahay taasa sixid u baahan war Soomaaliya assalaamu calaykum waxaa kaloo sixid u baahan sir culus soo yaaca waxaan idin hayaa sir culus war degdeg iyo waxaan waxba ka jirno YouTube-yada iyo Facebook-yada saa loola fadhiyo oo comment iyo share iyo shilma lagu raadinayo ilaahay baan idinku dhaari xoog baa leedihiin shaqaysto waxa
kuwaasaa sixid u baahan war horta wax meel laga xira mala miyaa laga istaajiyo war waxaa kaloo sixid u baahan ayaxan soo noqnoqday ee tagi waayey hadda wuxuu wadaa abaarsiine wixii lagula dagaalami lahaa lagula tacaali lahaa in la helaabaa sixid u baahan saaxiibayaal dhegaystayaal haatanna waa xubinteennii maxaad ku talin lahayd waxaan ku talin lahaa dadkan sii tahriibaya iyagoo arkaya kuwii ka horreeyey ee shalay tahriibay siday u baaba'een in loo sameeyo maalin duco oo ay arrintaa dawladdu ka shaqayso allayle arrintaas aniga waa soo dhoweeyaha saaxiibkay weliba waxaan ku tali lahay jimcada haddana soo haysa in loogu baaqo maalinta ducada soomaaliyeed oo masaajidada dhan dadkan iyo dalkan isnacay looga soo duceeyo war waxaan idin idhi war duco aan ficil lahayn falastiin baa ku xoroobi lahaydoo 70 sano loo ducaynahaye annaga teena waa inaan ficil ku darno masaajidka keliya ha nagu halaynin iyo wadaadade dumarku ha duceeye oo carruurta ha duceeyo oo macallimiinta dugsigu ha duceeye Soomaaliya dhan ha wada duceysato oo ducada ficil ha lagu daro waliba anigu waxaan ku darsanayaa gabdhow eelihi iyo bunkii adubi jirteen ayaa aan waadayseen oo siyaasad baad ku mashquulshaane maxaa abayda isu soo baxo waxaa weeye idinkoo ducada aad u maysa ragga keliya dalka ku hadlaynina layla annagu waxaan ku talinayaa wasaaradii diinta iyo cuqaaftu inay culimaa diinta imaamiinta iyo mu'addimiinta intay isugu yeedhaan dadka roobdoon ducaa loo akhriyo si ilaahay ayaxana noo dhaaf loona duceeyo kuwa tahriibaya ee badda inaga dhammaaday alla ya taasaan ku talin lahaa waxay iskumaana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya danlana ma yeelayno ku filan